Ma isku aragtay maalmaha qaar inaad haraad badan dareemaysid? Biyo badan ayaad cabaysaa, haddana muddo yar kadib sidoo kale haraad badan ayaad dareemaysaa. Inteena badan waxaan u haysanaa arrintaas inay tahay wax iska caadi ah, laakiin iska jir. Haraadka badan ama oonka aad dareemayso maaha kaliya baahi biyo, waxay tahay fariin degdeg ah oo jirkaagu kuugu sheegayo inay wax ka qaldan yihiin. Marka sokortu ay dhiigga ku badato, kiliyuhu waxay bilaabaan inay u shaqeeyaan si xawli ah si ay sokortaas dheeraadka ah ay dibadda uga saaraan jirkaaga. Natiijadu waa maxay? Waxaad u baahanaysaa inaad markasta kaadido. Mar kaste oo aad kaadido, jirkaagu wuxuu lumiyaa biyo badan, waana taas sababta haraadku u noqonayo mid aan kala joogsi lahayn. ugu weyn ee la sameeyo ayaa ah marka qofku dareemo haraad inuu ku ordo cabitaan qaboojiya oo sokor leh, haddii uu yahay mid dabiici ah oo la shiiday ama mid warshadaysan. Waa inaad ka digtoonaataa arrintaas. Waa qalad aad u weyn, laakiin bulshadeena Soomaaliyeed waxay ka dhigatay arrintaas mid iska caadi ah. Cabitaanka macaan wuxuu sii kordhinayaa sokorta dhiiggaaga, taas oo kuu horseedayso in jirkaagu uu sii qalalo, haraadkina uu sii kordho. Haddii aad haraado, ha cabin biyo cad oo saafi ah waxaanan ahayn, haddii kale waxaa tahay qof dab ku sii shubaya shidaal. Haddii aad isku aragtay saddexdan calaamadood, haraad aan go'ayn, kaadi badan gaar ahaan habeenkii, iyo daal joogto ah oo aadan garanaynin meel uu ka yimid, ogow jirkaagu wuxuu garaacayaa gambaleelka digniinta. Ha iska indha tirin calaamadahan. Haddaba haddii aad haraad xooggan iyo dhuuntoo ku qalalan dareemayso, marka hore cab biyo cad oo saafi ah oo keliya, kuna dadaal inaad mar walba aad cabto biyo cad waxaanan ahayn oo aad ka dheeraato cabitaanada macaan, dabiici ama warshadaysan ee sokorta leh. Hana iloobin shaaha sokorta badan lagu daraayo inuu asigana yahay dhib aad u weyn ee ku faafay bulshadeena Soomaaliyeed. Marka labaad, ha sugin oo orod oo iska soo baar xanuunka macaanka ee iska soo qaad dhiig si loo ogaado sokorta dhiiggaada ku jirta 3 bilood ee u dambeysay. Taas ayaa caddaynaysa inaad tahay qof sokor qaba iyo in kale. Jirkaaga mar walba waa uu kula hadlaa. Su'aashan ku weydiinayo ayaa ah, diyaar ma u tahay inaad dhegaysato baaqa ama fariinta jirkaaga kaaga imaanayso? Haddii aad ka heshay muuqaalkan, jeceshahana inaad ogaatid xogta xigto ee kusoo gudbin doono, hadduu Ilaahay ka raali noqdo, subscribe garee channelka, la wadaag qof aad jeceshahay oo aad ku aragtay calaamadihii hadda aan soo xusnay. Haddii aan ku weydiiyo su'aal, ma tahay qof nolol maalmeedkiisa subaxii ku bilaaba bakeeri biyo cad oo saafi ah inuu cabo? Haddii aad tahay, haa igu qor qaybta commentiga, haddii kale maya, si aan u ogaano inta qof ee naga mid ah ee mar walba ku dadaala inay kiliyahooda ilaaliyaan. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Nabadgelyo.